waxaan rabaa inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay howlgallo wali ka socda duleedka degmada Ceeldheer oo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud. taliyaha ciidanka Kumaandooska Gorgor ee qaybta koobaad Saahid Jareere iyo ciidamo uu hogaaminaya ayaa wali waxay ku raad joogaan firxadka maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee dhawaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ay kula dagaalameen gudaha degmada Ceeldheer. waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay maxaabiis cusub oo gacanta lagu dhigay iyo howlgallada oo wali ka socda duleedka degmada Ceeldheer. sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa iska dhiibay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. waqti xaadirkana waxaa gacanta ku haya ciidamo ka tirsan Kumaandooska Gorgor. wararkii ugu dambeeyay ayaa rabaa inaan kula wadaago, balse marka hore soo dhawaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada mahadsanidin. waagaga aynu ku bilowno. sidaad intiina badan ka warqabtaan, dhawaan degmada Ceeldheer waxaa ka dhacay dagaalo qaraar oo u dhaxeeya maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka. Al-Shabaab halkaasi waa lagu jabiyay, sidoo kale dagaalamayaal badan ayay ku waayeen, si lamid ah hub iyo saanad ciidan ayay gacanta ku dhigeen, balse ciidamadu ma aysan joojin howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda duleedka degmada Ceeldheer, si gaar ah aagga deegaanka Wanile. saakay howlgallo xooggan ayay militariga Soomaaliya si gaar ah ciidanka Gorgor waxay ka sameeyeen aagga deegaanka Wanile iyo deegaano kale oo 30 kiiloomitir u jira degmada Ceeldheer oo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud. howlgalladan waxaa hogaaminaya taliyaha qaybta koobaad ee ciidanka Kumaandooska Gorgor, waxaana mar kale gacanta lagu dhigay firxadka maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo maxaabiis ahaan ciidamada ay u soo qabteen. saraakiisha militariga Soomaaliya ee ku sugan duleedka degmada Ceeldheer waxay noo xaqiijiyeen in saacadihii la soo dhaafay ay gacanta ku dhigeen maxaabiis hor leh iyo sidoo kale maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo la sheegay inay ku go'doomeen deegaanada miyiga ah ee duleedka ka ah degmada Ceeldheer. Saahid Jareere oo ah taliyaha qaybta koobaad ee ciidanka Kumaandooska Gorgor ayaa ciidamo badan waxa uu ka kaxeeyay gudaha degmada Ceeldheer. waqti xaadirkana wali howlgallo lagu baacsanaya maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka wadaan banaanka magaaladaasi. sidoo kale saraakiishu waxay noo xaqiijiyeen in ay doonayaan in ay gaaraan deegaano cusub, howlgalladana aysan joogsan doonin ilaa Al-Shabaab looga daba tago weerarkii degmada Ceeldheer ay ku qaadeen halkii ay ka soo abaabuleen. kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in intooda badan ay u carareen dhinaca deegaanka Coosweyne, halkaasi oo la sheegay in markii horeba ay ka soo abaabuleen weerarkii ay ku soo qaadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ee ku sugnaa degmada Ceeldheer oo ka tirsan bariga gobolka Galgaduud. dhinaca kalena wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegayaan in deegaanka Xaaji Cali oo ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka Kumaandooska Gorgor ay iska soo dhiibeen 3 dagaalame oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. dagaalamayaashan ayaa maalmihii ugu dambeeyay si dhuumaaleysiya waxay u joogeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, si gaar ah deegaanka Lamagaras iyo 4 tuulo. ugu dambeynna waxaa la xaqiijiyay inay isku dhiibeen ciidanka Kumaandooska Gorgor ururo ka tirsan oo ku sugan deegaanka Xaaji Cali oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. saraakiisha hogaaminaysa ciidanka Gorgor ee ku sugan deegaanka Xaaji Cali waxay xaqiijiyeen inay gacanta ku hayaan raggii Al-Shabaab ka tirsanaa ee isku soo dhiibay, sidoo kalena ay nabad qabaan, diyaarna u yihiin in ay u soo wareejiyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. kooxda Al-Shabaab ayaa waqti xaadirkan waxay dareemaysaa culaysyo xooggan oo kaga imaanaya militariga Soomaaliya, waxayna bilaabeen in ay ka soo cararaan dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab iyagoo soo aadaya dhinaca ay joogaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka dadka deegaanka. maleeshiyadan soo dhiibtay ayaana la sheegay in markii horeba ay ka dagaalamayeen oo ay ka tirsanaayeen kooxaha jabhadaha ah ee ka dagaalama deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa AUSOM iyo ciidanka dadka deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay laba jibaareen howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ee ka socda deegaano badan oo dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. waxaana xusid mudan in ciidamadu ay gaareen guulo isdaba joog ah, iyada oo bariire oo kaliya lagu dilay wax ka badan 200 oo dagaalame. si lamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa guul wax ku ool waxay ka soo hoyeen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha degmada Ceeldheer, waxaana guulahan ay ku sababeen ama ku qasbeen Al-Shabaab in dagaalamayaashooda ay soo maraan dhinaca ciidamada militariga Soomaaliya. sidoo kale dhawaan wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa tagay oo shir degdeg ah qolka dagaalka isugu yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo la kulmay saraakiisha ugu sarsareysa ee militariga Soomaaliya, si gaar ah taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo sidoo kale taliyaha ciidanka lugta Janaal Saalax Cabdullaahi Cumar. madaxweynaha ayaana ku dhawaaqay in loo diyaar garoobo howlgal ballaaran oo Al-Shabaab looga nadiifinayo dhammaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
istaraatiijiyad cusub iyo howlgalka loogu magacdaray duufaanta aamusan ayaa la dejiyey waxaana la doonayaa in gebi ahaanba kooxda al-shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ismaaciil Daarshiin ayaan ahay.